xildhibaan Dr. Axmed Cali Maxamed oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley ayaa maanta waxa uu deeq buugaag gaarsiiyay dugsiyada waxbarashada ee ku yaala deegaanada Saari, Caratuulka, Ijaara iyo Galooley ee gobolka Gabiley. Xildhibaan Dr. Axmed Cali Maxamed waxa qaybinta deeqdan ku wehelinayay xildhibaan Cibaade Maax Cilmi oo ah gudoomiyaha guddida arrimaha bulshada degmada Gabiley. Deeqdan buugaagta oo hore loo gaarsiiyay deegaano kale oo kamid ah gobolka Gabiley ayaa waxa soo diray haweenka ururka Al-Khayr ee UK. Deeqdan waa buugaagta wax lagu qoro. Labadan xildhibaan ee mas'uulka ka ah qaybinta buugaagtan ayaa kuwa ugu firfircoon golaha deegaanka inta badan ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo sidoo kale xoojinta iyo badbaadinta danta guud ee gobolka. waxayna buugaagtan gaarsiiyeen goobaha waxbarashada ee miyiga oo dadka degan ay si weyn ugu baahnayeen adeegyada waxbarasho si dadka reer miyiga ah loo kordhiyo aqoonta iyo kartida waxbarasho si deegaanada ka fog magaalooyinka ay ugu soo baxaan arday jaamiciyiin oo abuuri kara mustaqbal nololeed si ay dib wax ugu celiyaan dhulkii miyiga ahaa oo inta badan aanay dawladdu xil iska saarin. haddaba buugaagtan ayaa waxaa farxad iyo damaashaad kaga jawaabay dadka deegaanka la gaarsiiyay buugaagta iyagoo maamulayaasha iskuuladu ay labada xildhibaan iyo ururka Al-Khayr uga mahad celiyeen dadaalka iyo qorshayaasha lagula dagaalamayo aqoon la'aanta jahliga iyo saboolka waxayna gundhig u noqonaysaa hadafka kaliya ee lagu abuuri karo jawi sahlaya in dib u dhis lagu sameeyo adeegyada dhaqan-dhaqaale ee bulshada gobolka Gabiley. inta kadib xildhibaanada ayaa gudagalay qaybinta deeqdan buugaagta. saaka waxaan joognay iskuulkii Caratuulka ama Guudle oo deeq buugaaga aanu wadno. deeqdan waxay ka timid Al-Khayriya waa urur dumara oo Ingiriiska xaruntoodu tahay inta badanna iyagu isxilqaamay oo xogaa yar uriyeen dhito markay noqotay bulshadii ay u qabanaysaa marka inta badan dadaal badan bay muujiyaan meelaha jaamacadaha oo kale bay caawiyaan oo waxa mahadnaq gaar ah u jeedinayna waxa weeye deyrkan jaamacada oo kale iyaga waxa weeye advocacy ahaan iyo dadaal ahaanba uu ku yimid oo dhisay sidoo kale gurmadkii berigii dadku markii ay soo qaxeen dagaalada xaggani Soomaaliya dhulkaas lafteeda bustayaal iyo wax badan oo sameeyeen oo siiyeen marka kulli deeqaas bixiyeen oo degmooyinka oo dhan ilaa agabal waxba ka dhiseen geed ballaad saas oo kale marka kulma meeshii baahida jirtay ee la soo xaqiijiyo inta itoolkooda waxba ku tagaan marka maantana waxa weeyaan deeqda buugaagta ayaa iskuulkii Guudle loogu deeqay waxyaabo kale oo ka rajeynaa insha Allah wuxuu ku soo beeray iskuulada ay caawiyeen may noqonaysaa marka Al-Khayriya waxaan u rajeynaynaa Al-Khayriya in waxa weeyaan ilaahay waxa weeye u balaariyo deeqaha ay dadka uga siinayaan dayarta sax ugu horeyn waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay marka labaad waxaan mahad aad iyo aad u ballaaran u gudbinaynaa ururka haweenka reer Gabiley ee Al-Khayriya ee soo gaarsiiyay deeqda buugta insha Allah waxyaabo badan inta ka badanna waan ka codsanaynaa buugtaasi maanta waxay noo qaban doonaan waxyaabo badan oo caruurtu waxay dareemi doonaan ardaydu inay ciidanayso oo ay soo feergareynayso marka waxaan leenahay hablahaasi aad iyo aad bad mahadsantihiin ilaahayna wax khayr qaba haydi siiyo sida dadkiina u soo xasoteen ayaanu annaguna idinku soo ducaynayna saan loo garab taagnaa waxa kaloo mahadnaqanaa labada xildhibaan siday buugta noo keenay ee ka soo qaaday hablahaasi Al-Khayriya oo kala ah xildhibaan Cibaade Maax iyo xildhibaan Axmed Cali Maxamed idinkuna aad iyo aad u mahadsantihiin waxa kaloo leeyahay hablaha Al-Khayriya ee Gabiley u soo caawiyeen magaalada deegaanada u soo caawiyaan hata waxa joogaa ama saaka waa iskuulkii Saari oo deeq buugaaga aan ugu deeqayno deeqda buugta waxa keenay oo ay ka timid ururka Al-Khayriya ee dumarka ah xafiiskoodu yahay London marka ilaa shalay iskuulaadka loo qiiminayay maantana Saari iyo Guudle ama Caratuulkii iyo Galooley iyo Ijaara iyo kuwaas loo qiiminaya insha Allah marka aad baan ugu mahadnaqaynaa Al-Khayriya oo runtii in badan dad bulshada masaakiinta oo damqata haday tahay dhinacii waxa weeyaan gurmadkii abaaraha haday tahay kobcinta iyo kor u qaadida waxa weeye waxbarashada oo meelo badan oo waxa weeye dhinacyada waxbarashada aad bay wax uga tareen marka aanu hadalka soo koobaya
الخيرية وحوي جروب كدمر كات بن مهد علينا نحن لمناهم وحنا رجينا إن تايرة أي يسكو سوقيين أي سيدا أول كودي وأي سوق قاعدين ما وحوي يعني ضيب وقت هاي هذا وحتر كلا تايبة مركا أدم مهد سيهين دلالك يقولون كاسي ولا أنا وحوي والله شقينا ما تروح أي كنن وأنا قلت سوقي جنين ضدكي أي أقول تلقين وقت ما كوري جنينا isagoo naga gudoomiya iskuulada biyada amba ilaahdaan iskuulada hoose dhexe marka aad baan u mahadnaqaya oo maanta kulankii koobaad ay noo keenaan deeq buugaag fara badan oo ardayda macallimiinta baa aad baan u mahadinaya aad iyo aad baan u mahadinaya ay walaalaha maanta waa bishii 3 tahay waxaan joognaa dugsigii hoose dhexe ee Galooley annagoo buugaag ay soo direen jahliyada UK الخيرية أي بوقت تاسيون وقيبيني دقمة إنتي بدن وأنا بوقت ما شاء الله أي هبله وصوت يقن وحنا نقول على سكول كذا رجينا أرتي دينا سفي عن جارسيان وحي ما تكتب بينا ده وحي يجي ما دمر بعد أنا إذن كانوا أنا جوا مرة كي جست حدا ما تو مرة بلا جهلية ده للسعودية مرة وأنا جد ديجان كللسعودية ما تنا وأنا قاعد قيبتي كاني سدا ربع وحي ما دنا وأنا قبل كيجا وأنا جعلنا إني وحي نسوق على أنه إذن قيبينه أو لازم تاك هو كلامنا إذن كنا أرضيدا سوق روح بدل وقو قيبية أو أرضيدا سية أرضيدا الله بصوت لكلي أرضيدا نسية جهليتنا وحنا لنا جزاكم الله خير حبل بوقت عدو صدرتين ولا لين عروتي يرينا وانا كايون وكغفر حنا والسلام عليكم سدا حلو من عباده شيغتين وانت داخل نوسيدنا اسكولكي Galooley oo iskuuladii kale shalay dahad baan barnay buu ka mid yahay وضيق بوغاغا oo ka timiday jaaliyada الخيرية ee dumarka ah runtii الخيرية aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay ugu mudan tahay arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo danyarta intaba aad bay ugu danqadaan ugu deernaxaan marka maanta waa deeqdii labaad oo u timiday dadkii iskuul ardaydii marka inuu baan oran lahaa jazakum allahu khayr dadaalkaada wadaana ilaahay haydin barakeeyo in lagu dadana waa waajib gaar ahaan waliba dee ragga waa in yaro noqonay detail ba dee wax dhashay wax tarta marka waa tusaale waa model way marka waxaan rajaynaynaa dadka ay soo gaadhay dee ardayda loogu talagalay in sida loo siiyo waa sida cibaada sheegtay waa runo waa mashruucna waa tii la waday deegaanka ahayd oo nimidnay waxaan rajaynaynaa in mashruuc inay noo dhalo oo kale deegaanka uu ka shaqeeyo marka in laga wada shaqeeyo wixii ummadeena wax u tarayana waa waajib aad bay mahadsan yihiin maamulaha dugsiga iyo macallimiintiisuba waxaan idin rajaynayaa inaad waxa weeyaan idinkuna aad dadaalkaas sii wadaan oo waxa weeyaan waxtarka iyo waxqabadka ummadeena aynu qabanayno in ka wada qayb qaadano buugaagtana kolley si wanaagsan aad ugu qaybisaan ardaydii bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ah maamulaha dugsigan hoose dhexe Galooley waxa saaka halkan ugu soo booqday labada xildhibaan ee xildhibaan Sangub iyo xildhibaan Cibaado waxay noo keeneen deeq buugaag ah oo ka timid jaaliyada الخيرية ee UK qaybteedu si fiican bay noogu soo gaarsiiyeen oo noogu keeneen waxana aad iyo aad ugu mahadnaqayaa labada xildhibaan buugaagtii aad u soo maxay raahdaa wakiilateen sida fiican ay u qaybiyeen ee dugsiyadii u gaarsiiyeen ay u habeeyeen ee annagana noogu keeneen waxa kale oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaaliyada الخيرية ee UK ee dumarka ee dadaalaya ee degmadoodii iyo gobolkoodii iyo dadkoogiiba waqti kastaba ku fikiraya ee shilinkii ay helaanba ururinaya meel dhigaya kolba baahiyaha meeshii ay u baahan tahay ku soo fureynaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa horena way u yimaadeen halkan xubno ka tirsan oo sahre iyo xildhibaan Cibaado ay noogu yimaadeen wax badan inay ka qabtaanna way rajaynayeen guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan dugsiganba
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo inay ku daydaan ah ragga jooga UK waxa weeye inagoo joogna maanta dugsiga hoose dhexe Ijaara waxaan ku wareejinaynaa deeq buugaagaho ay ugu soo deeqeen ama ay soo direen baan ururka Al-Khayriya oo urur dumar oo xafiiskooda uu ka dhisan yahay London oo inta badan arrimaha bulshada xoog uga shaqeeya oo waxyaabo fara badan runtii ka qabta maantana waxay ugu soo deeqeen deeqda buugaagta iskuulkan iyo iskuulo kale oo aan maanta soo marnayba aad baan ugu mahadnaqaynaa Al-Khayriya ururkaasi oo runtii aan leenahay jazakumullahu khayr dadaalkana halka ka sii wada waxaan waliba aan ku boorin lahaa dadka kalena kulli midnimadaas wax lagu gaarayaa imika dumarkaas inay tiradooda iska yartaa laga yaabo inay badnaynba sidaan tirada ku hayo haddana wax qabadkooda wax tar buu yeeshay oo waxa weeyaan wax fara badan bay qabteen haddii dhinaca wacyigelinta noqoto iyo haddii hadal ay yiraahdeen wax badan loogu joogsado oo wax tar ku yimaado marka aad baan ugu mahadnaqayaa dumarkaasi waxaan leeyahay jazakumullahu khayr aan joogno iskuulkii hoose ee dhexe Ijaara waxaanu ugu deeqaynaa buugaag ay soo direen walaalaha iyaga Al-Khayriya ka dhisan UK waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa hablahaas sida ay dadkooda u soo xasuustaan inay dadka kalena u soo xasuustaan ardayduna baahi weyn bay u qabtay waxbarashadan aad bay uga shaqeeyeen oo sidoo xilal Axmed Cali ba sheegay marka waxaananu leenahay deeqdii aad soo dirteen sidii baan u gaarsiinay iskuuladii intii ay gaaraysay ayaanu gaarsiinay maantana waxa ugu dambeysay Ijaara oo nugeynay waxaananu ilaahay ka rajaynaynaa waxa dambana inaad soo gaarsiisaan saan baan u gaarsiinay anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe Ijaara maanta oo tahay bisha 16 February 2015 waxaan ka gudoomay xildhibaanada cibaado iyo Dr. Sangub buugaagtan oo ay u soo gudbiyeen ururka dumarka ee Al-Khayriya degan UK marka waxaan leeyahay jazakallahu khayr ilaahay khayr idinku bedelo idinka iyo xildhibaanada alxamdulillah shukran si kastaba aatee waxaa xusid mudan in loo baahan yahay in ganacsatada dawladda qurba joogtu ay diiradda saaraan qaabka kaliya ee loo caawin karo dadka saboolka ay ku dhaqan deegaanada ka fog magaalooyinka si kor loogu qaado dadaalka loogu jiro horumarinta bulshada aanay cidina u maqnayn ceelna u qodnayn iyadoo xildhibaan Dr. Axmed Cali Maxamed iyo xildhibaan Cibaado Maah Cilmi ay qaybo badan ka run sheegeen ballanqaadkii xilligii ololaha oo ahaa in deegaanada laga soo doortay ay dib wax ugu celin doonaan waa Jaafar Cawl Helali shabakada wararka ee Gabiley News Network magaalada Gabiley